السلام عليكم دمانتين سو دوادا كسو دوادا مركلة يعشرة ذي امتحانها أها مسيدة توسكا وقلي جرني تطبات كستم على أربعة ما أنت سدي على ده هيد وحين دقنا هنا يديس هلكا 10 كويدين كإيمانيا ودكسيجا برشة أففكا اللانجويج كولج جرجيسا language and computer college جرجيسا ولو برضو أففكا أفرتها عربي إنجليزي سومالي إيه فرنسيسكا يولي بقى كمبيوتر كودوان لسوكري سود هذا وحرجينا يا إنا عد كيجا مغليسان هتاسفي عني مغليسان هوس يجا صوترا إنا مغليسان وحين ما تيجينا توبن إري توبن كإري قاركود وحقوق أتكان دونا هجاد دودا قاركودنا وحقوق أتكان دونا معناها أي سيدان بقار كود نقوات كان دونا سيدا سترتد أي نسكت داينو ها أي نسكت داينو إنه إريا دا هجاد دودا سفي عام كراينو إلى تشوف أنت أنتم كإريا دم يستري إن شاء الله تعالى إريا أوجه الريا أي تهاي نتهلك هوسة يفعل هذا يوصل قرطة وحويان بهم إريا بهم معناها بهم ما قرنيسا معناها بهم هداد قرنيسا إيه سوقر هدي كلنا إريجا أون سوقر سيارما يقولين هديجات ديسا يجلس كيسا صحدي ويا هاي بهم إريجا بهم اسكو داينا سوقر تو عن كاسحو حيه بهم قرال كيسا يمعنيه سيصور راعي بهم يقدر بهم بها بيراتك يبهم بها يقدر حيكون شرتي حليمو هنا عثمان بهم بالغلط هذا بهم معه بهم أيان عدي واستولدك بيتري معناه هو ددوي هاي استولدك لكن هجاد إلى ياسفي عنه ما تسحن بهم ومركا هو مجع يحي أما أفكر ثلاث مركا هو نوم كي يحي ويا مجع مركا هو يحي بهم بيراتك يبهم هاي جدا تنقولها بهم ويا هاي بهم هل أبوري الكاوي أيا إريجا معنيه سحي وحولي وأوهنته ساسي ودو ذا حي حويان بهم هو مركب وقف ويسك أوهنيو قف مركب ويسك أوهنيو عروض أكله يوم مركب يسك أوهنيا بقى بهم هيا بقى مركب وقف يسك أوهن ويان المعنى هو يسك أوهن وقف يسك أوهنيا لكن إريجا بهم هل أبوركم مسحين ويا هاي تلقرن ما يمسح معها نمبا صحي هل نمبا صحي لا يمكن بهم ومركب وقف يسك أوهنيو وروين وكسر وحكادا ما يستو هيا هذا ويسك بهم هنا يا ولد بهم ويا بهم من حمس الله يرابان إريجو صحة مركيجو رسي سوقري لكن يمكن تطبقن باصحي بهم ذات اللغة وها يها بهم ويا إريجا كحيجا وبرجويو إريجا يمعنيه سيسكو سوقرا قر برجويو وامحي برجويو إريجا برجويو وامحي إريجا برجويو أما برجويو لبضة سبب والله أخريا برجويو أما برجويو لبضة والله هذا حيه حكيت كم مقشة إريجا مقالة آد لوجو أديك سدا إريجا برجويو أما برجويو لبضة والله هذا وياهي
waayahay bargooyo haye bargooyo ayaan cadday bargooyo sidaa looma qoro ismaaciil cabdi bargooyo sidaa looma qoro qof baa saxay hal qof baa saxay laakiin barigooyo iyo bargooyo labadaasi waa la qoraa laakiin khalad baa ku jira hal khalad baa ku jira halkii khaladeen ereygan usoo xushay baa weli la samaynayaa haye barigooyo ama bargooyo sidee loo qoraa haye macnihiisu waa maxay sideese loo qoraa macnihiisu waa maxay sideese loo qoraa waayahay qofku hadduu koonfur kasoo jeedo dhacdaasoo kale ra' buu qorayaa marka wax iska caadi qofku hadduu dhacdaa ra' u qoro oo uu koonfur kasoo jeedo laakiin caadiyan sida loo qoraa waa sidan sida ay kusoo baxday qoraalkii dhacda ra' mararka qaar baa loo bedeli karaa way bargooyo waxaa loo yaqaan marka ama barigooyo waxaa loo yaqaan marka qofka nabar la gaadhsiiyo ama wax lagu dhufto ee dabadeed uu warqadda kasoo qaato saldhigga ayaa la dhahaa waa barigooyadiisi waxay muujinaysaa nabarka lagu dhuftay inta uu leegyahay inta qodob ee la tolay waa barigooye weeyaan waa ereygan wuxuu ka mid yahay erey bixinta loo sameeyey markii magaalooyinka la yimi ayaa loo sameeyey erey bixintan waayahay dadka qaar waxay u fahmayaan waxaasi wuu igu bargo-ay taasi waa bargo magaceedu waa bargo taasi bargo weeyaan laakiin barigooye maaha waa bargo si kale loo qorayaa taa bargo baa loo qorayaa bargo baa loo qorayaa taa saasaa loo qoraya waa bargo magaceedu waa sidaasaa loo qorayaa tanise way ka duwan tahay waayo ereyga xiga waa magaalo magaceed weeyaan magaalada haddii aad maqashay waxaad soo qoraysaa higaadeeda iyo halka ay ku taallo isku day inaad soo qorto waa qari jiqood sida loo qoroyna eegana inaad saxdaan aniga laftarkaygu magaaladaasi way igu cusbayd maalmo dhaweyn baan bartay qari jiqood soo qor siday u qormaysaa qari jiqood siday u qormaysaa qari jiqood soo qor magaaladu halkay ku taallana soo raaci waayahay qari jiqood magaaladaas sidee loo qorayaa higaadeeda muhima iyo halka ay ku taallo haddii aad inaba garanayso qari jiqood haye nin baa gartay halkay ku taallo waa mahad cige uu gartay waxay ku taallaa dowlad deegaanka ama Soomaali galbeed bay ku taallaa qari jiqood higaadeeda laakiin markii dambe uu saxay qari jiqood waxay ku taallaa dowlad deegaanka Itoobiya ama Soomaali galbeed qari jiqood sana loo qorayaa waa laba ra halkaasi waa laba ra qari jiqood waayahay qari jiqood weeyaan qari jiqood waa laba ra ereyga xiga waa ereyga afaraad baynu u baahannahay waa tarsaas
wuu tarsaasay wuu iska tarsaasay tarsaas qoraalkeeda iyo macnaheega qoraalkeeda iyo macnaheega wuu tarsaasay qoraalkeeda iyo macnaheega tarsaas 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 haye wuu tarsaasay tarsaas tarsaas waxaa gartay inanta ugu horeysaa garatay sida loo qoro muhaa garatay macnaha sheeg macnaha ereyga tarsaas macnihiisa ma garanaysaa tarsaas tarsaas macnihiisa ma garanaysaan tarsaas tarsaas waxa weeyaan qofku marka uu wax aan macno lahayn ku hadlo ama uu iska hantaatoco baa la dhahaa wuu tarsaasay waa waxaan macno lahayn ama aan faa'iido lahayn buu qofkaasi ku hadlay waayahay waa waxaan macno lahayn markuu qofku ku hadlo la dhahaa wuu tarsaasay waayahay ereyga shanaad quraar quraar waa la quraaray waxaa waa la quraaray hadda quraan maaha waa quraar 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 waa la quraaray waxaa waa la quraaray quraar ereyga macnihiisa iyo higaadiisa isugu kay soo dar ereyga macnihiisa iyo higaadiisa isugu kay soo dar quraar macnihiisa haddaad garanayso iyo higaadiisa haddaad garanayso isugu kay soo dar waayahay ereyga quraar quraar waa la gartay sida qoraalkeeda higaadeeda si fiican baa loo gartay waa maxay macnaha ii sheeg macnaha quraar waa ra iyo ra halkaas quraar waa maxay quraar hal abuuryeelkaawi baa si fiican u gartay quraar wax marka la quraaro waa marka wax la xardho ereyga u dhigmaa waxa weeyaan waxaa marka la xardho waa wax la xardhay weeyaan waa marka la qoro ee la quraaro waxa weeyaan burkaa la quraaraa dhiisha waa la quraaraa wax kasta oo badanka Soomaalidu ay geed ka qori jirtay oo dhan way quraartaa gorofka waa la quraaraa ma garanaysa wax kasta oo geed laga qoro asalkiisu loox ahaa waa la quraari karaa waayahay ereyga lixaad faalalow 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 ama faalalow faalalow warkaasi waa mid faalalow faalalow macnaha iyo higaada ereyga faalalow kaasi waa mid faalalow 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 waa mid faalalow warkaa waxba ha ka qorin waa mid faalalow wey faalalow ilaa imika waxa saxay ilaa imika nin quraa saxay hal abuuryeelkaawi baa saxay faalalow sanaa loo qoraya faalalow halkaasi waa a weeyaan o ma waa a faalalow
waa mid beenaalayo wax hal abuurto oo magaranaysaa wax iska samaystay weeyaan mararka qaar qofka faalka yaqaan xataa waa la yiraahdaa asalkeedu halkay ka timi oo ereyga asalkiisu faal buu ka yimi waa mid faalo lagu waxa uu sheegayaa badanka khiyaal iyo been waasnimo yihiin weeyaan waayahay hal haleel isagoo naxsan buu si halhaleela u cararay halhaleel ama isagoo naxsan buu hadalkaasi halhaleela u yidhi halhaleel si halhaleela halhaleel halhaleel si halhaleela haye halhaleel halhaleel si halhaleela si halhaleela halhaleel male fakaag halhaleel fakaag male jiitinna male waxba male way isku xidhan tahay halhaleel halhaleel waxa weeyaan si aan ku talagal ahayn weeyaan si halhaleela buu yidhi waa si aan ku talagal ahayn si halhaleela buu orday waa si aan ku talagal ahayn buu orday waxaa anigoo naxsan baan dabadeed si halhaleela u waa anigoo ku talagelin oo aanay qorshaha iigu jirin baa dareenka naxdinta ah ee kolkaa i soo daristay baa igu keentay inaan sidaa u ordo oon sidaa u hadlo waa waxaan ku talagalahay ereyga sideedaad waa xayawaan magicii waa jiriqaa sidee loo qorayaa jiriqaaga ama jiriqaa xayawaanka waa wada garanaysaan soo maaha guryaha ku aragteen badanka jiriqaa haddii aan deegaanada qaar waxaa laga yaabaa in magacyo kale looga yaqaan laakiin deegaanka aan ku koray jiriqaa baa la yidhaha jiriqaa hab qoraalkiisa muhima iyo higaadiisa midkan jiriqaa hal qof baa saxay ilaa imika hal qof baa saxay ilaa imika qoraalka ereyga ama xayawaanka magaciisa jiriqaa inan labaad baa saxday waxaa markii ugu horeysay saxay hal abuuryeelkaawi baa saxay markii ugu horreeyey waa laba ra halkaasaa la khaldayay waa laba ra jiriqaa way adag tahay ereygaa xiga ayaynu yeedhinaynaa haye waa magaalo magaceed lafaruug waa magaalo udhaxaysa Hargeysa iyo Berbera lafaruug haye ereyga lafaruug ereyga lafaruug ereyga lafaruug sanaa loo qoraa dadku waxay moodayaan inuu ra'daasi ay shadan tahay ra'du ma shadna waa lafa ruug caadiya ra'du
مشدنا وهل رأوية وايهي إريجا قدام بيا بروسين كسوما تقانان بروسين إريجا هجاديسا يمعنيه سيسوك يصور راعي بروسين عيال حيرات قوة قرانا يعني يو بروسين هي بروسينكا أما بروسين هي بروسين هل قف با صحي الله يمكا استيلا صحي marka ugu horeysa waa laba ra weeyaan way adag tahay barrosin laba jeer baa laga kacaya wax kasta oo la sheego laba jeer baa laga kacaa barrosin hogaamiye wax kasta inuu shidan yahay waxaad ku garanaysaa waa lagu fariisanaya bar haddana waa laga kacaya rosin uu shidan yahay markaa sheegaas kani laakiin lafa ruug laguma degay halka lagu degay aadaba yahay shaqalka bay shibanaha ma yahay waayahay aad ba u mahadsantihiin aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynaa 10keeni 10ka ereyada imisaad garatay imisaad garan weyday isku imtixaan haddii aanad hore u baran maanta baro waa inoo inta aynu isugu imanayno barnaamijkan lamid ah noole kulanti dhamaantiin